Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan mar kale. Imisaad garanaysaa dad bilaabay inay bartaan wax cusub, wax yar kadibna iskaga tegay, halkay tiro yaroo ka mid ah dadkaasi si joogtayna ay u wadeen ilaa ay ka gaadheen halkay rabeen. Maanta waxaa muuqaalka idinku soo gudbinaynaa sida wax loo joogteeyay ee ku soo dhowaada barnaamijko faahfaahsan. aanu qeexna bal ereyga joogtayn macnaheedu waa wadis aad waddo shaqada oo aanad kala goonin. shaqada markaad maalinna qabatid maalinna aad ka seexatid oo faraha ka qaadid, lama odhan karo shaqadaas si joogtaa baad u qabataa, waayo maalinna waad qabataa shaqadii, maalinna faraha ka qaadaayo waad iska seexataa. markaa ereyga joogtayn waxa weeye wax walba oo la joogteeyayo. ereygaasna si ay iska macnaysanbo joogtayn oo wax si maalinlaha loo qabto. waan isla fahanay rajaynaya qodobadana muhiimka u gudagalo. qodobkeena koowaad runtii muhiimka ah, horta wax walba oo qofku doonayo inuu gaadho halkuu taagan yahay iyo wuxuu doonayo biriishka u dhexeeya waxaa la yidhaahdaa waa joogteen. qofku halkuu taagan yahay intuu ka dhaqaaqo ma gaadhi karayo wuxuu doonayo ilaa uu maro buundada ama biriishka joogteynta ee ku xidhaya wuxuu doonayo. markaa waxaad doonaysid inaad xaqiijisid waa inaad joogtaysaa si maalinlaha aad u qabatid. nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa la weydiiyey camal ilaahay xaggiisa lagu jeceyl badanya. nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi camalka la joogteeyo si maalinlaha loo qabto camal yarna ha noqdee. marka haddaad maalintii joogtaysi ka waran subxaana allah cadiim, allahu akbar, laa xawla walaa quwata billah, isalliya nebiya, ilaahay xaggiisa wax weyn baad ka helaysaa adduunya akhraba. qodobkeena labaad ee isaguna runtii muhiimkaa waxa weeye wax walba oo aad doonaysid inaad joogtayso wuxuu noqonayaa caado. tusaale ahaan subaxii markaad soo toosto waad cadeeyataa, wejiga ayaad dhaqdaa. intaasi subax dheyli waa kuwa caado waad samaysaa. haddaba tusaalaha maxaan uga socdaa? markaad doonaysid inaad wax joogtayso oo caado ka dhigatid, waxaad doonaysid inaad joogtaysid wakhtiga aad haysatid 24 saacadood, saacad ka mid ah baad qabanaysaa 24 saacadood, kadibna maalin dheyli waad qabanaysaa. sidaad markaad soo toosteed aad cadayga iyo weji foodhaqashadaana u ilaawin ayaad aad u xasuusanaysaa ileen waa wixii aad doonaysa inaad joogtayside. waxaana saacad gaara u samee, saacadda maalin dheyli sidaa u qabo, marka dambena caaduu ku noqonaya. caadaduna waxay ku dhisantaa 60 cisho ilaa iyo 66 cisho oo maalmood ayay ku dhisantaa caadadu. qodobkeena saddexaad ee runtii isaguna muhiimkaa waxa weeye naftaadu dulqaado, waayo hawada marmarka qaarkood kula tegaysa wixii aad doonaysay adoo ka mashquulay oo wax ku jeediyeen baad is arkaysaa. marmarka qaarkoodna waad kufaysaa, waayo wax walba oo qofku doonayo inuu gaadho uu guul ka gaadho oo uu ku cusub yahay, marka ugu horraysa uu ku cusub yahay in badan buu kufayaa. si fududna wax kuuga hagaagi maayaan ilaahayo in dhicitaanka iyo kufitaanka badan khibradaad ka qaadatid maahaane. tusaale ahaan ilmaha yara carruurtahay markay yaryar yihiin oo socodka baranayaan in badan bay kufayaan. sida ay u kufayaan ayay marka dambe baranayaan inay istaagaan oo lugahooda ku socdaan. sidaasi la mida weeye wax walba oo aad doonaysid oo cusub oo aad doonaysid inaad xaqiijisid waxay ka dhigan tahay sidii ilmaha yar ee kacaa kufayay. markaa kolleyba waad ku fasaayay kicitaanka sii baro, yacni mar walba oo dhibaata kaa hor timaado inaad isku dhiibtid maahe waa inaad hore aad uga gudubtid casharna aad ka qaadatid dhibaatadaas. qodobkeena afaraad runtii isaguna muhiimka waxa weeye ku dhaqan joogtayn iyana xamaasadu kaa noqonin labada cisho keliya xamaasadu kaa noqonin ee mar walba waxaad doonaysid inaad joogtaysid. sidaad subaxii aad u soo kacdid oo aad u quraacatid, subaxii markaad soo toostid u samee waxa sidaasi la mid ah weeye caadooyinka iyo hore subax dheyli markaad soo toostid aad qaban jirtay ku daba xidhun ban kuleeya. qodobkeena shanaad ee ugu dambeeya, markaad ballan ku qaadid inaad waxaa joogtayso sideeda ballantaa ugu ofi, waxaas sideeda u fili. ballandarre ileen waa diindarre. ugu dambayntii joogtayntu naftu waa dariiqa aad ku hanan karto guusha, waana ka kaa caawinaya inaad ka adkaatid caadooyinka iyo xunxun. waa hagaag daawadayaal, intaasuu ku eegayaa muuqaalkeena. haddaad ka heshay muuqaalka hanagala bakhaylin leeta inaad saartid muuqaalka. haddaad nagu cusub tahayna sabskribe saar jalanka si ay ku soo gaadhaan muuqaalada aanu soo gelino. inta muuqaalka xigaan isugu imanno waxaan iga tegaya amaana allah. wasalaamu calaykum.